والنبي صلى الله عليه وسلم ومباضعتك أهلك صدقة reerkaaga inaad gogasha la seexato oo xaajadeeda guddo xaajada gogasha inaad xaaskaaga u gudaay waa sadaqo yaa iyada kaliya xaajadeeda ma gudaysida adiguna waad ku gudanaysaa meeshaasa ishkaal ka yimid saxaabadu marka su'aal ka keenay waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah ayaqdi ar-rajulu shahwatahu wa takunu lahu sadaqa oo ninku intuu shahwadiisa ku guto oo xaajadiisa guto miyuu hadana sadaqa ka helaya ajir ka helaya miya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam na'am ara'ayta law ja'ala tilka ash-shahwa fima harrama Allah alayhi haawu risaasu ajir kaga helaya يا sababtu wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka warrama shahwadaasi haduu meel xaraana ku gudan laha dambi ma ka soo gaari laha haaba yiraahdo kadalika haduu meel xalaala ku gutana ajirkeedu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam waa sadaqa Soomaaliyeed aduu wali ma istiri reerkaaga iyo gogashiisa wali ajir ma ka raadis wali ma istiri meeshana ba ajir ku jira يا دينتنا ودين عظيم أوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحى وين إذا عند المداعبة ما كان حاس كاجا وضع يا ريسان وفرح يا ريسان انتظر انت قاعد أفك أذوق لسان أجر كيليس يا ريسان حتى حالة جدية ما صوت محيط هاي نفعي باكوتشر نفعي وين انت أفك اللي يسوق لي ما هي مقصد كوين باكدم بيه oo ilfadi zawjiyada iyo kalgacaylkii iyo isoosudumankii iyo wax badan baa meesha ku jira adigu cuntoon afka la isu galiyaa ka fahmi wax ka weyn baa meesha ku jiro muhiim ah oo waraa dalika ku jira macna